Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maantay waxaan ka hadli doonnaa arrimihii ganacsiga. Fiidiyowgan midkii ka horreeyay oo aan uga hadalnay arrimaha ganacsiga. Waxaan ku soo bandhignay 6 tilaabo oo aad ku abuuri karto ganacsi adiga kuu gaar ah. Haddii aadan daawan fiidiyowgaas, wuxuu ku jiraa janaalka ee soo daawo. Maantay waxaan halkan idinkugu soo gudbinaynaa 4 sababood oo uu ganacsigaagu ku noqon karo mid guulaysta, maqaam sarena ka gaaray suuqyada caalamka. Sidoo kale, waxaan fiidiyowgan idinkugu soo gudbinayaa 8 dabeecadood oo uu leeyahay ganacsadaha guulaysta. Runtii dhammaanteen waxaan ognahay in ganacsigu yahay isha kaliya oo aad ka abuuri karto dakhli iyo sumcad noloshaadana horumar gaarsiinaya. Qofku marka uu yahay creative isagu wax abuurta iyo marka uu yahay shaqaale u shaqeeya qof kale oo isaga la mid ah, runtii isku mid maahan. Mar walbana waxaa sharaf iyo maqaam sarreeya qofka creative-ka ah. Laakiin haddii aad qof adiga kula mid ah u shaqayso, weligaa noloshaada horumar kama gaaraysi, mana ku fikiraysi waxaan ka ahayn mushaarkaas aad shaqaalaha ku tahay wax ka baxsan. Marka aad doonaysid inaad abuurto ama aad bilowdo ganacsi guulaysta ah, waxaa lama huraan ah inaad suubiso saadaalin ku saabsan qaabka ganacsigaagu ku noqon lahaa mid guulaysta. Waxaa lagama maarmaan ah inay ganacsigaaga soo wajahayaan caqabado u baahan in la xalliyo, weliba si degdeg ah. Sidaa daraaddeed, waxaa loo baahan yahay inaad ka sii taxadirtid khataraha soo wajihi kara ganacsigaagan cusub. Haddii aad doonaysid inaad yagleesho ama aad aas-aasto ganacsi guulaysta ah, waxaa waajib ah inaad isweydiiso 4 su'aalood. Qodobka koowaad waa inaad ogaataa ganacsigaaga. Farqi weyn ayaa u dhexeeya markii aad saaran tahay baabuur aad taqaanid meesha iyo halka uu u socdo, iyo marka aadan aqoonin halka uu u socdo gaariga aad saaran tahay. Marka aadan aqoonin gaariga aad saaran tahay meesha uu u socdo, waxaad dareemaysaa cabsi, caajis iyo walaac fara badan. Arrintaasna waxaan uga dan leenahay waa inaad taqaanaa ganacsigaagu waxa uu yahay iyo waxa uu qabanayo iyo ujeedka loo aas-aasay iyo waxa uu hiigsanayo mustaqbalka dhow iyo mustaqbalka fogba. Qodobka labaad waa inaad taqaanid qaabka ugu wanaagsan ee loo maamulo ganacsigaaga. Waa inaad awood, karti iyo mid maskaxba u leedahay ganacsigaaga. Waa inaad si wacan u maamushaa ganacsigaaga. Heerka ganacsiga iyo sumcaddiisa waxa ay ku xiran tahay aqoonta uu leeyahay ganacsaduhu iyo qaabka uu u qorsheeyo hawlaha ganacsiga. Waa inaad si fiican u maamushaa lacagaha ganacsigaaga. Maaliyaddu waa halbowlaha ganacsi walba oo dunidan ka jira maantay iyo jiritaankiisa. Maamulka wanaagsani waa mid inta badan diiradda saara maamulidda lacagaha kambaniga soo galayo iyo lacagaha ka baxayo. Qodobka saddexaad waa inaad taqaanaa maamulidda shaqaalaha. Jiritaanka ganacsi walba waxa ay ku xiran tahay hadba tayada shaqaalaha iyo isku xirnaantooda. Weligaa shaqaalaha ula dhaqmin si bini'aadamtinimada ka baxsan. Fikirkiisa u tixgeli, mar walbana dareensii inuu kambaniga qayb weyn ka yahay oo uusan shaqaale kaliya ka ahayn. Taasina waxay booska ka bixinaysaa inuu shaqaaluhu caajislow noqdo, mar walbana waxa uu u shaqaynayaa sidii inuu isagu shirkadda leeyahay oo kale. Waxa uuna noqonayaa mid dhoola caddayn saaxiib u ah. Qodobka afaraad oo ah qodobka ugu dambeeya waa qancinta macaamiisha. Jiritaanka ganacsigaagu waxa ay ku xiran tahay wax soo saarkiisa. Inaad mar walba wax soo saarto, alaab cusub iyo qalab cusub aad keentaa si aad u soo jiidato macaamiisha. Wax soo saarka ganacsiguna waxa uu kor u qaadayaa helitaanka macaamiil fara badan oo kaa iibsada badeecada aad soo saartay. Ganacsaduhu waa inuu si fiican uga taxadiraa tayada badeecada iyo qancinta shaqaalaha iyo macaamiishaba. Haddaba sidoo kale waxaan halkan idinkugu soo gudbinaynaa 8 dabeecadood oo uu leeyahay ganacsadaha guulaysta. Waxaa jirta xigmad dhahaysa start where you are. Ka bilow meesha aad joogto. Use what you have. Isticmaal waxa aad haysato. And do what you can. Samayna waxa aad awoodo. 75% ganacsiyada yaryar ee cusub waa ay guul daraystaan. Waxaa si cad loo tilmaamaa in 25% oo ah kuwa guulaysta ay sabab u tahay sifooyinka uu leeyahay hogaamiyaha ganacsigaas, ugana duwan yahay kuwa kale. Haddii guusha ganacsigu ay ku xiran tahay tayada uu hogaamiyaha ganacsigaasi u leeyahay, maamulidda ganacsiga iyo dadka ka hoos shaqeeya, waxaa lama huraan ah in la helo hogaamiye aragti iyo aqoon iyo waayo aragnimo intaba isku darsaday. Waxaa jirto astaamo qaas ah oo ay leeyihiin hogaamiyaasha guulaysta oo ay uga duwan yihiin dhigooda. Sifooyinkan waa kuwa ugu caansan ee lagu garto hogaamiyaasha ku guulaysta ganacsiyadooda. Qodobka koowaad waa dad aad u go'aan adag. Ganacsiga sidiisaba maahan wax sahlan oo laga helo faa'iido kaliya, balse waxa uu u baahan yahay dhabar adayg, go'aan iyo qorshe cad. Haddii aadan lahayn go'aan qaadasho iyo la talin joogto ah, waxaa kuu sahlanaanayso inaad guuldarrada aqbashi.
guuldarradu waa furaha guusha. marna maskaxdaada ha gelin adigoon guuldarraysan inaad guulaysatay. ha ku daalin middaas, waa dhalanteed dadka qaarkiis ay iska dhaadhiciyeen. qodobka labaad waa dad ka fogaada qarashaadka. si walba oo wax soo saarka kor loogu qaado lagana dalacsiiyo heerkii uu horay u joogay, balse aysan jirin hannaan lagu maamulo wax soo saarka loogana fogaado qarashaadka faraha badan, marna lagama yaabo in ganacsigaasi uu guul gaaro. waxaaba wax soo saarka hoos u dhigaayo qarashaadka faraha badan oo la galaayo. hoggaamiyeyaasha guulaystaha ahi waxaa yar qarashaadkooda, waxaana badan habfikirkooda iyo siday wax u maamulaan. qodobka saddexaad waxay leeyihiin hal abuur. waxaad arkaysaa ganacsi sidii lagu bilaabay ku socda oo aan wax fikrad cusub ah lagu soo kordhinayn, oo meeshii lagu bilaabay weli jooga, oo aan marnaba isku dayayn inuu wax ka beddelo nidaamkaas. arrintaasna waxaa sabab u ah mulkiilaha oo ka cabsanaya isbeddelka. isbeddelku waa lagama maarmaan, ganacsi aan isbeddel lahaynna ganacsi ma aha. qodobka afaraad waa dad aan marna quusan. ganacsiyada adduunkan ka jiro oo guulaystay sirta ka dambaysay inay guulaystaan mataqaanaa waa qaabka ay dhibaatada, caqabadaha iyo rafaadka ugu sabraan. nin walba inta uu ka samir iyo adkaysi badan yahay ninka kale ayuu guusha uga dhow yahay. soomaaliduna arrintaas horay ayay uga mahmahday oo waxay tidhi samraasadkiisuu helaa. qodobka shanaad waa dad hibo ganacsi leh. marka aan dhahaayo waa dad hibo u leh ganacsiga, taas macnaheedu maahan inay yihiin dad ku dhasha ganacsiga ama nasiib u leh, ee waxaan ka wadaa waa shakhsiyaad awood ahaan, maamul wanaag iyo maskax wanaag intaba isku darsaday. qodobka lixaad waa dad macaamiisha si wanaagsan ula dhaqma. ganacsi walba waxaa saldhig u ah helidda macaamiil jecel adeegga iyo badeecada ganacsigaas. haddii badeecadu tayadeedu hoos u dhacdo ama badeecadu xumaato, waxaa meeshaas ku luma macaamiisha. hoggaamiyaha wanaagsanina waxa uu mar walba u doodaa macaamiilka gadanaya badeecada ama adeegga shirkadda. waxa uu u hagarbaxaa si macaamiishu u helaan adeegga ama badeecada ugu wanaagsan suuqa oo dhan. mar walbana waxa uu naftiisa ka soo qaadaa macaamiisha oo kale. waxa uu raadiyaa cilladda ama tayaxumada adeegga ama badeecada shirkaddiisa. mar walbana waxa uu ka fikiraa sharafta iyo maqaamka shirkaddiisa. maahan qof dabeecad xun oo shaqaalaha ku qayliya haddii ay hawsha sidii la rabay u qaban waayaan. waxa uu ula hadlaa si deggan, isagoo u sharaxaya cilladda ay leeyihiin. qodobka toddobaad waa dad deeqsiyaal ah. dadka intooda badani waxa ay jecel yihiin inay la shaqeeyaan hoggaamiye deeqsi ah dhanka la macaamilka shaqaalaha iyo macaamiishaba. haddii aad tahay hoggaamiye shirkad cusub ama mid raba inuu hadda aas-aaso, xasuuso oo ku dhaqan talooyinkan. waxaan hubaa badankood inay ku caawinayaan haddii aad raacdo. qodobka siddeedaad oo ah qodobka ugu dambeeya waa mid leh awood tartan. hoggaamiyaha wanaagsani waxa uu ku loolamaa suuqa, sida kasbashada macaamiisha, helidda shaqaalaha ugu fiican, ku tartamidda heshiisyo waaweyn, iyadoo suuqu uu yeelan karo loolan xooggan iyo iska caabin uga imaanayso dad kale. kama cabsado guuldarrada, waxa uu u arkaa inay tahay guushiisa. waa mid kalsooni badan, dhoolcadayntuna tahay caadadiisa. waa mid aan isla weynayn oo qadarin badan haddii uu la hadlaayo midka dadka ugu yar iyo midka dadka ugu weynba. waxaan filayaa fiidiyowgan inuu ku caawiyey. haddaba maxaad sugaysaa? maad walaalkaa u sheer garaysid, janaalka sii faafi, fiidiyowga like dheh. waa walaalkiin Saki Cabdi Yaasiin.